geed abqaalka timirta geedkeeda yar ee la abqaalayo ee la beerayo ee geed weyn oo timira laga sugayo. timirtu waa dhirta dhagaha adag leh, yacni waa dhirta sannadaha laga dhur sugo, maaha dhirta inta maanta la beero sanadkan iyo sanadka labaad iyo meelaha wax laga sugo. waxaa laga yaabaa 5, 6, 7 sano inaad sugto. nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, haddii qiyaamuhu uu sanqadhiisii bilaabantay ama se uu dhacayo, midkiinna uu geedtimireed gacanta ku hayo, haddaad awoodda buu nebigu leeyay inaanu qiyaamahaasi dhicin intaad geedtimireedkaasi ka gaadhsiinayso, beer buu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo ka gaadhsii. sawirka qofka caadigii wuxuu is odhan lahaa haddii malaa waxay ahaan lahayd haddaad maqasho qiyaamihii baa dhacayo dacalkuu soo taagayay inaad qof ku tidhaahdo astakfirullahda badi, ama waxaad salaad tukan karta salaad tuko, ama intaad wardigi karta wardi. halkaasuu qofka markuu u arko meesha uu ku degdegi lahaa waa halka kan. laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u arkaa camalka dunida la qabanayaa inuu yahay shayga aakhiro rajada weyn laga sugayo. hadduu camalku yahay mid waafaqsan sharciga islaamigii wixii uu faray, saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qiyaamuhu hadduu dhacayo oo midkiin gacanta uu geedtimiraad ku hayo falyuqrisha fain istataaca an laa taquuma xataa yaqrisha. haddaad awoodi karto inaanay qiyaamo aad ka gaadhsiin karto la boobi karto inaanu dhicin inaad beerta mooyaane beer baa lagu yidhi. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaa dadka muslimiinta inay yihiin dad muntijiina, dad wax soo saar leh, ummad aan ahayn caalla cala alukhra, dad kale u baahan. islaamku wuxuu farayaa ummadda muslimka ama qofka muslimkii inuu shaqeeyo, hanti iyo lacag uu soo saaro, cilmi iyo aqoon uu keeno, laakiin waa inay janno goysaa. masaladu waa taa, hanti maximum soo saar, cilmi maximum baro, inta ugu sarraysa aad baran karta baro, inta ugu sarraysa aad awood yeelan karta wax soo saareed wax soo saar, laakiin yay noqonin mid jannada ku weydaarisoo naarta ku geysee mid jannada meel sare kaa gelisa waa inay noqotaa. u fiirsa xadiidka bukhaari iyo kayrkiiba warinayaan, nebiga calayhi salaatu wasalaam baa faqaradii muslimiintu u soo ashtakootay. maaha sidii shuuciyadda siraacu tabaqaat oo haniga kama ashtakoonayaan, hanigay ka ashtakoonayaan, laakiin waxay u ashtakoonayaan waxa weeyaan qadiyat almunaafasa. jannadii baa nalaga badiyey bay leeyihin, cibaadaadkii baa nalaga badiyey. waxay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuula allah, dahaba ahlu اduhuuri min alamwaali biاdarajaati alculaa waاnnaciimi almuqiim. dadkii xoolaha lahaa bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo, kuwii xoolaha haystay jannada booskeedii sare iyo nicmadeedii maguuraanka ahaa dee iyagaa qaatay bay yidhaahdeen. oo kayfa daak buu nebigu yidhi, say arrinkani u dhacday. waxay yidhahdeen yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum walahum fadlu min amwaal yaxujuuna biha wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaddaquun. waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow intaannu cibaado badaniyo samaynoo dhan way samaynayaan, ma aha niman intay xoolo heleen meel fadhfadhiya oo dabeetana kolle baariis u duula kolle meel kale u duula. aragtidaa ma aha aragtidoodu, waa aragti xoolihiisa uu janno ku raadinayo. sida daraaddeed waxay leeyihin kow, sidaannu u cibaadaysannay u cibaadaystaan. niman xoolale oo xooluhu mashquuliyeen maahee waa niman xoolahana soo saara, cibaadaduna aanay dhaafin. yusalluun kamaa nusalli bay leeyihin, annagoo faqro oo cibaado shaqo ka haysanna sidaannu u cibaadaysanna si leeg bay u cibaadaystaan. saannu u tukannay u tukadaan, oo saannu u soonnay u soomaan. xoolo dheeraadana way hayaanoo xaj ay ku tagaan oo cimro ku tagaan oo ka jihaatamaan oo sadaqadaystaanna way leeyihin. nebigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ma idiin sheegaa arrin idinkuna haddaad samaysaan wixii idinka dheereeyeyna aa gaadhi kartaan, cidina aanay idin soo gaadhi karin. markaasay yidhahdeen, haa ilaahay rasuulkiisiiyo, dee nin isaguna intaad samaysaan markaa idinla sameeyo mooyaane buu ku yidhi. haa bay yidhaahdeen. wuxuu yidhi tusabbixuun wataxmaduun tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir la kaalaya salaad kasta dabadeed 33 jeer.
masaa'ilka innagu aynu iska fudaydsanno ama dadku maanta marka la yidhi 3 jeer samee waxaad arkaysaa qof carabka rogrogayo gacanta caynkaa leh subxana allah waxba ma tirinayo faruhunbaa iska bartay iyo gacmaha insaa la isku yidhaahdo laakiin tira maaha asalku wuxuu ahaa in qofkani uu kow laba tiriyo ama subxaana allah subxaana allah subxaana allah ha u tiriyo ama subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar ha u tiriyo oo saddexdaba mar ha isku yidhaahdo inuu tirada hubsado si uu ahlu duhuurka ula bartami karo laakiin xataa kuwii cibaadaysanaya cibaadadii baa ka qasantay subxana allah inta cabaar la yidhaho faraacinkaa la yidhahda baa la kacaya inuu 20 yidhi iyo inuu 30 yidhi iyo inuu 50 yidhi ma kala garanayo laakiin qolada tan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam 33 jeer mid kasta dhaha dabeetana kuwii idinka dheereeyeyna waa ka daba tegaysaan cidina idin soo gaadhi mayso dee cid intaa samaysaan in leegoo kala samaysa mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa noqdeen sidii bay yeeleen qoladii xoolaa lahaydna waa maqashay ila waa rag iyaba cibaadada raadinayeen waa la boobeen iyaguna subxaana allah dii waa la wadeen dabeetana nebiga u yimaadeena waxay dhahen ilahay rasuulkiisii oo qoladii lacagta lahayd intiina way naga daba yidhaahdeen dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa buu nebigu yidhi dee kaasi waa ilaahay dheeraadkiisa iyo ilaahay baa cidduu doono siiya ee wardigiinna haysta markaa weeyaan idinkuna kambal boobsiiya intaa boobsiin kartaan maxaa ka muuqata waxaa ka muuqda dad maal la soo saaro muntijiina dad camal samaynaya aakhirana aan laga dheeraynaynin dad camalka ay samaynayaan u arka inuu yahay kii ay ku janno tegayeen dad maalku uu yahay markaasi waxa janno lagu tago waxa markaa aynu leenahay saxaabadu waxay ahaayeen dad aakhirada iyo adduunka shay qura u wada arka camalkan dunawiga uu wadaa inuu yahay aakhirana kuu boos janno ee ku doonaya sare dad u arka qof aan naftiisa qura ka fekerin ee bulshadoo dhan inuu horumariyo bulshada islaamka ah oo dhan inuu bal eta bini aadamka oo dhan waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa maxaa fii suurati alinsaan alle muxuu ku tilmaamayay markii waxbixinta laga warramayay ويطعمون الطعام على حبه يا maxaa la yidhi miskiinan وayatiiman وأصيرا asiirku waa ayo asiirku waa kaafiru billahi dee dagaal lagu qabtay maaha muslim idan bashariyadoo dhan bay tijaabinayaan inay noolayn karaan waa dad muntija markaa waa dad wax soo saar leh dadka muslimka ah sida daraaddeed ayaa saxaabadu waxay ahaayeen dad ahlu bataala amay ahayn dad meel fadhfadhiya oo wardiyo uun may ahayn sida dadka badh sawirayo ee waxay ahaayeen asxaabu xirfa dad ilaahay iyo rasuulkiisa ku xidhan oo cibaadaysta oo jihaatama oo haddana xirfad iyo wax soo saar leh dad bay ahaayeen aan dadka ku kor noolayn maalan muhaajiriin baa soo guuray madiina yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu walaaleeyey saxaabadii si aan asma iqhtisaadiya u dhicin lama odhanin waa laajiyin kuwan iyo laajiga waxa la siiyo waxa la yidhi muhaajiriin baa la yidhahaa laajiyiin maaha waa muhaajir qaxoonti maaha ee waa soo hijroodeen baa la yidhi hijrada iyo qaxoontinimadu waa kala nooc kuwan soo hijrooday waxa la yidhi markaa kuwii meesha joogaa lala walaaleeyey kuwii lala walaaleeyeyna xooluhu agtooda wax badan kamay ahayn sida daraaddeed ayaa axadu saxaaba sacd ibnu rabiic wuxuu ahaa nin maalqabeena ansaar nimanka ugu maal badan ka mid a cabdiraxmaan ibnu cawf baa lala walaaleeyo wuxuu yidhi kaale cabdiraxmaan ansaar waxaan ahay ragga u xoolo badan waxaan kaa rabaa buu yidhi faqad xoolahayga laba u qaybiyo qayb qaado laba dumaraan qabaaye tii adiga ku cajabgelisaan furaya markay ciddadeeda dhammaysato guurso naf iyo maalba waan kula qaybsamaya waxaan haystoo dhan cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi ilaahay walaal ha kuu barakeeyo waxaad haysato xoolahaaga iyo haweenkaaga iyo waxaagaba allah ha kuu barakeeyo ee anigu nin farsamo yaqaana baan ahay buu leeyay nin xirfad yaqaana businessman nin yaqaan sida loo tijaareeyo aniga suuqa i bar buu yidhi suuquni tus dulluunii cala suuq waxii dhiibiyo in yaroo intaan ku baac mushtariyaan kuu soo celiyo ii dhiibna xataa kuma odhanin war xoogaan ku faraqabsadoon ii dhiib waa soo celinayaa xataa taa ma odhanin wuxuu leeyahy waxaagoo dhan dayn ma rabo lacag ma rabo waxba kaama waxaaga allaha kuu barakeeyo oo muxuu qaban wuxuu yidhi aniga suuqaygee suuqa yaa haystaa suuqa yuhuud baa haysata suuqa madiine ee tijaarada reer banu qanuqaac baa gacanta ku haya
iyagaa ah markaa casabu اliqtisaad fi اlmadiina lafdhabarta dhaqaale ee magaalada